waxaanu goosanay inaan 17 xildhibaan la qorin oo ayna ka qayb galin doorashada Puntland ka dhacaysa deer waxaanu goosanay inaan kuwa loo cusboonaysiinayaa jirin oo taas macnaheedu noqonayso wax reer Khaatumo ah oo xildhibaana oo ka qayb galaya bataatan baynay jirin inaan la iska sharixi karin madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne u dhashay reer Khaatumo inuusan iska sharixi karin xilligan Puntland qodobka saddexaad waxa weeye guddiga khilaafaadka waxa ku jira laba qof oo reer Khaatumo ah inaynan metelin laga bilaabo hadeer inaynan metelin reer Khaatumo isla markaana waxaan ka codsanaynaa inay iscasilaan bishii December 2023 waxa guriga Garaad Cabdilaahi Garaad Saleebaan isugu yimi ismada dhaqanka Khaatumo wajiyadooda halka ay fadhiyaan waxaanu gaarnay go'aamo masiiri ah kuwa iyaga gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba inta yadan waa shirnay shir baanu saako dhan u fadhinay intii naga maqnayna waxaanu soo galinay khadka telefoonka go'aan aanu ku midaysannahay oo aanu dadka iyaga ugu turayno aanu isleenahay waa xal aanu ugu turayno walaalaha iyo reer Puntland iyo cid kastaba oo aanu isniri waa go'aanka ugu wanaagsan ayaanu gaarnay waxaanu gaarnay sida tan waxaanu goosanay inaan 17 xildhibaan la qorin oo ayna ka qayb galin doorashada Puntland ka dhacaysa deer waxaanu goosanay inaan kuwa loo cusboonaysiinayaa jirin oo taas macnaheedu noqonayso wax reer Khaatumo ah oo xildhibaana oo ka qayb galaya bataatan baynay jirin qodobka labaad inaan la iska sharixi karin madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne u dhashay reer Khaatumo inuusan iska sharixi karin xilligan Puntland waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye guddiga khilaafaadka waxa ku jira laba qof oo reer Khaatumo ah inaynan metelin laga bilaabo hadeer inaynan metelin reer Khaatumo isla markaana waxaan ka codsanaynaa inay iscasilaan qodobka afraad wixii talo iyo wanaag qodobka afraad maadaama intaas oo dhan la gaadhay raggii wax qori jirayna halkaa inay joogaan oo wajadooda aad aragtaan oo ay igu taagay ma garanaysaa anigu afayaan baan ahay laakiin waa go'aankii ay ka soo baxay wayna hadli doonaan waa raggii wax qori jiray inaan suuqa laga qoran karin inaan maxaa la yiraahdaa mid warqad hore bari hore haysta ay shaqaynaynin go'aankaas waa go'aan la gaadhay wixii intaa dhaafsiisan walaalaha iyo reer Puntland waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo wanaag iyo doorasho wanaagsan wixii intaa dhaafsiisan ee wada hadal ah ee ka dambeeyana diyaar baanu nahay salaamu calaykum waraxmatullaahi